midda koowaad horta daahir cali sow hees waxaa jirta aan u qaaday 2017 miya ama 2018 hada meelahaas hees daahir cali sow aan u qaaday ayaa jirta oo la yidhaha daahir daahir heestas markaan u qaadayay dad badan baa waxay dhahayaan inta lacagaan isiiyo wax mararka qaar lacagta waxyaabo badan oo ka muhiimsanaa jirto dadna waxay dhahaan rakaato waayo waxbuu ka hayaa kan waayo horta aniga waxba laygama hayi karo sababtoo qof oo maanta maxaan ku raadayay siraheeda ama jirkeeda ama balaayadeeda macnaha banaankaas yaalla ma ihi alxamdulilah laakiin daahir cali sow lacag iyo intaaba wax kasii wanaagsan ama xiriir walaaltinimo ama xiriir gabar iyo maxaan ku waalidkeed ama xiriir maxaan ku raadayay gabar fanaana iyo abwaankeeda ayaan ahayn heesta markaa u qaadayo daahirow waad si ogtaa ana waa ku ogahay aniga hees lacag igumaadasin laha heesta lacag aad igu siisay ma jirto haddaad dhihi doonto adiga afkaaga waa qoyanya waad dhihi kartaa anyway aniga shalay sharaf ayaan ugu qaaday walaaltinimo ugu qaaday abwaan ahaana ugu qaaday waalid ahaana ugu qaaday adiga qof wuxuu iga ahay markaa iga mudnaay daahir cali sow laakiin maanta muxuu igu sameeyey wax aanan aniga ka mudnayn anigoo ina axmed ah daahirow maantay waxaad soo geliday hees anigu waa iska jiifay waxba ma kala ogeyn waa lasoo waxaa lagu yiri daahir cali sow heestaada soo geliyey maxaa dhacay mafankaa kusoo laabatay aniga xanuunkii ihaayey waxaa iigu darsamay naxtin videoga markaan soo fiiriyba waa heesta daahir horta laba mid iguma fiicno daahir oo heestaad soo geliday youtube-kaaga midda koowaad marxaladda adiga aad ku jirtid ee maanta qabiil iyo waxyaabaha adiga aad maanta sameynaysid iguma fiicno midda koowaad midda labaad heesta inaad mid ka dhigtay hees cusub oo aniga aan qadiyad ahaan ama qabiil ahaan ama hiila ahaan aan kugu soo qaaday ayaad ka dhigtay midda saddexaad waxaad ka dhigtay inaan anigu fanaannimadii kusoo laabtay ma fahantay anyway heestii markaan arkay aniga daahir cali sow horaa ka wacay ayaantaan oo dhan waa wacay daahir cali sow igama uusan qabanaynin arrimo kale oo dad kalean kala hadli rabay laakiin maba iiga qabanaynin taas muhiim maba ii ahaanba laakiin tayda maanta waas wacay waan wacay wiga qabo waa codaa u duubay waxaan ku riday maxaan ku raadayay maxaa waay heesta iga soo gibay ma adaa dadka iigu soo hormar maanta ani because kiisahayga youtube-ka qaaraa ku jiro oo haba iska fiyis yiraadaan laakiin still dee qofkii maanta qaaliladan qoray heesihii qaar ayuu helayaa ugu badnaan inuu helaa laga yaaba haba iska fiyis yiraadaan laakiin kuwaas maanta wuu iiga daraada daahir kuwaas ninkii iga celi lahay ayaad ahayd muxuu sameeyey taleefonkii iga maqan codkaygii mausan furin ani qoraalna waa ugu daray qoraala qoray adi qoraalkayga adhano inuu arkin kale laakiin waxaa jirto commenti aan heestii laftirkeeda uu soo geliyay aan ugu dhex qoray heestii waxa ugu qoray dhaarow ikaamuni adeerow iga saar heesta ilaahay amarkiisa anoo isdhahaay bal ka warsug bal jawaab ka sug intaas waxaa waaye kaa saaraa ama uu kugu soo warceliyaa adiga waxaa iisoo dhacay comment ay ku qoranta qaaliya gabaraan jeclaa tahay islaanaa tahay isla meeshii aniga aan qoraal ku qoray reply dadkii soo dhahay qof kamid ayaa wuxuu iisoo qoray idinka waa soo fiiri kartiin aniga nin hibilaa ahay ana qabiil ma sheegaayay walaale macaani waa kaa naxay waxaan kasoo arkay shiino culey beejkiisa isaga oo macnaha anigana wax xubsay iga hed horta soomaalida sideedaba itus itaabsiyaa la dhahaa soomaalidu wax ma hubsato waxay sameynayaan wixii arkayaan hobaba hore kala ordayaan marka wiilkaas horta wax fiican u sameeyay jisaa kala walaalkayga khayr allah ku siisaas kala soomaalida wax u hubsan lahaayeen heer baan gaari lahayn maanta adduunkaan la tartami lahayn waan fikiray shiino culey waxaan fiiriyey youtube-kiisaan fiiriyey waxban kuma jiraan waxaa isdhahayo maxay taa xusheegaa wiilkaan waxaan tegay facebookiisa tegay facebooka shiino culey friendsaa kana wuxuu kusoo qoray aniga iguma soo taageereen hadduu igu taageeray lahay at least mar hore inaan arki lahaa laga yaabaa wuxuu kusoo qoray qaaliladan oo telefoonka waa ka baxay miyaamuu maantana hees qabyaalad ahaan daahir ugu soo heelisay qabiilkii qabyaaladii ku qaadamiyaa kuma dhigto